haddaba barnaamijkeenna waxaynu ku bilaabaynaa maxaa ka soo kordhay xiisadda gobolka bariga dhexe gaar ahaan arrinta ka dhex taagan Iiraan iyo Mareykanka. haddaba wararkii soo kordhay tan iyo intaynu kala maqnayn ayaynu barnaamijka ku soo gudbinaynaa. wasiirka arrimaha dibadda Iiraan oo jawaab u diray ergeyga Mareykanka wadahadallada u qaabilsan Witkoff iyo wiilka uu sodoga u yahay Trump. haddaba fariintan maxay tahay, maxayse ka bilaabatay? waa taa barnaamijkii xalay aan soo gudbinay aan ku soo qaadanay Witkoff iyo Kushner oo dul saaran markabka diyaaradaha xambaara ee Mareykanka ee ku sugan bariga dhexe. waa taan idiin sheegay waa fariin ku socota Iiraan. haddaba telefishinka Al-Carabiya ayaa saakay qoray warbixin uu leeyahay jawaabtii ugu horreysay ayuu Caraaqji ka bixiyey soo muuqashadii Witkoff ee uu ku soo muuqday badda dusheeda, waxaana uu sheegay wasiirka arrimaha dibadda ee Iiraan intaasoo aysan waxba cabsiya gelin doonin Iiraan. haddaba booqashada Steve Witkoff ergeyga Mareykanka u qaabilsan arrimaha gobolka bariga dhexe uu ku tegay markabka diyaaradaha xambaara ee Mareykanka Abraham Lincoln oo ku sugan gobolka, wasiirka arrimaha dibadda ee Iiraan wuxuu ku tilmaamay tallaabadaasi iyo soo dhoobidda ciidamada Mareykanka ee bariga dhexe in tallaabadaasu aysan wax cabsiya gelin doonin Iiraan. Caraaqji wuxuu sheegay isagoo ka hadlayay shir ka dhacayay magaalada Tahraan maanta Axada in militariga Mareykanka ee lasoo dhoobay gobolka ay yihiin kuwo markaa aan waxba cabsiya ku abuuri karin ciidamada Iiraan. dhanka kale waxa uu sheegay in Iiraan ay diyaar u tahay labadaba, xal diblomaasiyadeed iyo al-harb ayuu yidhi, dagaal labadaba diyaaraan u nahay, sida ay qortay France Press. marka ninkan shalay warkiisa waa taanaynin markab dushiisu intuu isku soo sawir waa ninkii jimcihii la fariistay wafdiga Iiraan Cabbaas Caraaqji iyo wadahadallada ka hadlayay. maalinkii ku xigay sabtida inta baxay ayuu markabka dagaalka dul fuuray. sidoo kale jimcihii markii wadahadallada la isugu yimidna taliyaha ciidamada taliska dhexe ayaa horey u soo raacay General Kober mid kale leeyahay. waa tii Iiraaniyiintu ay ku qabsadeen ay yidhaahdeen meesha ma waxaan kaga hadlaynay xal diblomaasiyadeed mise xalul caskari, military ma kala hadlayn xalkiis mise xal diblomaasiyadeed. ninkan generaalka muxuu anaga generaal way noo joogaan. waa tii muran ka dhacay meesha. maalin kadibna isla generaalkii iyo labadoodii inta baxeen markabka dushiisa fuulayna fariin soo direen. marka wariyaashanu kaa harimayaan ninkii Caraaqji ahaa maanta oo Axada la qabtay isagoo meel shira ka qayb galay. Caraaqji waxaa la yiri saaxiibada jimcihii aan la shirtay markab dushiisa ayagoo saaranay fariin ku soo diray ka waran maxaa u aragtaa Allah tallaabadaas? annaga mana lagu cabsi gelinayo. annaga askara inta ii joogta iyo kana inta ii jooga waxaas mana lagu cabsi gelinayo. mabaadiideena asaasigana marnaba kama tanaasuleyno. حل الدبلوماسي ديارة حل ميليترينا ديارة خلاص وحكا لو كان حي ملأ هدي وضع هذا الربان أهلا وسهلا هدي دقال أي ربان ندميش إنه كلا قارتين لذا مركا نكا مركا عراقشي سداسو إسو الدفاعي أو مارتي أو كاقي جوابي وحماشا كدعي إسلا وراركي إيران يوحي كسو كورني ayaynu barnaamijka ku faaqidaynaa oo aynu kaga hadlaynaa. jiradda la yiraahdo Ra'yul Yawm ayaa saakay waxay qortay warbixin ay leedahay Iiraan waxay rajaynaysaa inay sii socon doonaan wada hadallada inkastoo ay adag yihiin. Mareykankana wuxuu ku dhagan yahay waxyaabo uu ku tilmaamay khad cas. haddaba waxyaabaha marka meesha ka jira waxaa la sheegayaa inay muujinayaan in dagaal aan laga fursan karin. Iiraan waxay leedahay dagaal iyo waxaan wada hadalladu inay socdaan la wada hadlo. Netanyahu waa tii uu yiri Arbacada waxaan tagayaa Washington. wada hadalka waa in lagu daraa sawaariiqda annaga wadnaha na qabtay nuclear-kan kaligiisa lagama hadli karo.
sawaariiqda iyo waxa dhan iyo ciidan ay kaalmeeyaan iyo waxa dhan waa in laga hadlaa marka sheekada marka Iiraan waxay leedahay anagu wax ma diidanin wada hadalladu ha sii socdaan laakiin waxa jira waxyaabo aan laga gudbi karin oo aan la isku soo qaadi karin oo ay kamid tahay sawaariiq waa tahay marka qodobka isaguna halkaas aan kaga gudbaynaa qodobka kale ee wararkan ku soo kordhay gobolka bariga dhexe waxa kamid ah sheeko kale oo xiiso la jirta maraakiibta Mareykanka ee halka ku sugan ayaa waxay yiraahdeen maraakiibta Sacuudiga ee ku sugan aagaas nala sameeya dhoolatus aan sameeynaa aynu ku muujinayno iskaashiga iyo haddii dagaal dhaco ee maadaama heshiisyo isbahaysi aan leenahay waa kaas Sacuudigu waxay yiraahdeen laba mid meesha saarana annaga iskaashiga aan leenahay macnaheedu ma aha inaan isu kaashanayno Iiraan in la weeraro may laakiin haddii aan rabto inaan annaga maaragtay dhoolatus samayno soo baxa waxaa timaadaan jidda imaada macnaha xuduudkeena imaada awal waxay rabeen Mareykanka inay baxrul carab iyo dhulkan iyo Hormuz iyo meelaha Sacuudiga geeyaan oo Sacuudiga iyo Iiraan ay isu tuuraan oo maaragtay uga dhaxbaxaan laakiin Sacuudiyaanku aaday isu ilaalinay wax la heshiisa naga dhaxaya sax waxa leedahay heshiis difaac oo dhawaan markii Mohammed bin Salman oo Washington tagay uu soo saxeex iskaashiyo badan naga dhaxaya laakiin annaga tababar ma wada sameynayna aha soo gala biyaheena jidda imaada macnaha xeebaha jidda imaada meeshaas ku sameynayna walasgaada meesh macnaha hal qof ama hal dawlad oo caraba ama gobolka ah oo ku taageerta Mareykanka inay la weerarayso Iiraan waa la waayay dawlad kasta waxay tiri annaga maaya annaga xaalkan kuma jirnaynaad Iiraan waa la hadlay waxay yiraahdeen annaga Mareykan ma ka ogolaanayno dhulkeena iyo hawadeena inuu idinka soo weeraro annaga dagaalka kuma jirno Iiraan ay ogaada Mareykankii marka baddaas u dhooban yahay wadan taageera sideedana waxa la yiri Mareykan sidiisaba marka uu meel weerarayo isbahaysi u baahan hatta haduu la dirirayo Daesh iyo Al-Qaa'ida iyo isbahaysiga waxa maqlaysa la dagaalanka Daesh maqlay alaab isbahaysi la'aan ma socon karaan siyaasadooda asaas Iraq la weerara isbahaysi u sameysana meel hebla la taga oo dadkana waa la weeraraa isbahaysi u sameeyna marka isbahaysigaas gobolkii hal qof laga waayay aan Israa'iil ka ahayn marka hadda muxuu rabaa tartiib Sacuudiga dhoolatus kula sameynayaan kan badda cas maraakiibta Iiraan agteedii meelahaas ku soo marxashay Sacuudiga istaajay adeero meeshaan geen annaga tamriin iyo tababar hadda sameynayno jidda noogu imaaway haddaba marka aan idin soo wararkii ugu dambeeyay arrinka laga qoray wakaalada wararka Anadolu waxay sheegtay in marka tababar wada jira ay sameeyeen ciidamada badda Sacuudiga iyo kuwa Mareykanka waxaana tababarka uu ka dhacay Jeddah ana magaalada Jeddah ayuu ka dhacay tababarka wasaaradda difaaca ee Sacuudiga ayaa sheegtay tababarka wada jirka ah ciidamada badda Mareykanka inuu ka dhacay magaalada Jeddah oo ku taala galbeedka dalka Saudi Arabia haddaba wasaaraddu waxay sheegtay in tababarkaasi uu soconayo muddo saacada ah waxaana la sheegay inay ka qayb qaadanayaan ciidamada badda Sacuudiga iyo kuwa Mareykanka tababarkaasina wuxuu la xiriiraa in marka iskaashi iyo ay sameeyaan ku saabsan heshiisyadii hore ay u gaareen in la isdhaafsado aqoonta iyo tababarada waxaana uu ka dhacayaa waliba saldhiga ciidamada badda Sacuudigu ay leeyihiin ee liiraado saldhiga Malik Faisal ee dhinaca badda kaasoo ku yaala magaalada Jeddah way marka waa arkaysaan marka meeshan cid kasta in la gaado ma ogola ma la isgaadi karo meeshan Sacuudi wuxuu taagan yahay adiga heshiisa naga dhaxeeyo waa istababarayna meesha biyeena imaa meesha aan ku baashaalayna laakiin baxrul carab iyo
meelaha dhulka banaani hana geenin oo adeero meesha aan geenin meeshaas Iiraan iyo annaga hadda qoortina isu galno marab hadaba